madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga hogaaminaya ayaa goor dhow ka ambabaxaya halkan garoonka Aadan Cadde International Airport. wafdiga madaxweynaha waxay ku sii jeedaan dalka Itoobiya halkaas oo uu uga qayb galayo shir saddex geesood ah oo ay yeelanayaan dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. shirkan ayaa daba socda heshiiskii dalalkan ay ku gaareen magaalada Casmara 5 bishii Sebtembar 2018.